diyaaradan sidan u weyn ayuu qayb u cunay ninkan wuxuuna cunay waxyaabo bir ka samaysan iyo dhalooyin dheefshiidkiisuna waa mid adag balse haddii uu cuno mooska aan cunno cambaha aan isticmaalno iyo cunooyinka fudfudud wuu ku jiranayaa caloosha ayayna ka xanuujinayaan waxaana loo bixiyey master wax walba cune wax jilicsan oo dhanna calooshiisa uma baran inaadan aaminin ayaa laga yaabaa waxa ninkan aan kaaga sheegayo laakiin caddeemo iyo diiwaano rasmi ah oo laga qoray ninkan baan ku hayaa kuna tusayaa bal aan ku sharxo mucjisada caloosha ninkan iyo qisadiisaba ninkan waa nin Faransiis ah calooshiisa mucjisada ahna waxaa la fajacay dad fara badan isla calooshiisana waxaa ku maqan oo lagu tabayaa diyaaradan sidan u weyn sanado ayayna ku qaadatay inuu cuno baaskiilo telefishino iyo sariiro ayuu sidoo kale cunay calooshiisana waxay awood u leedahay inay qaabisho wax walba oo adag iyada oo aanan wax dhaawac ah gaarin isagoo 9 sano jir ah ayuu bilaabay cunida waxyaabaha aadka u adag sida dhalooyinka biraha iyo waxyaabaha kaleba ninkan la yaabka badan lehna caloosha mucjisada ah waxaa lagu magacaabaa Miguel Tito 1950 ayuu ku dhashay dalka Faransiiska iraantiisa ayuuna bilaabay cunida waxyaabaha cuntada aanan ahayn oo aysan bini'aadamku aysan cunin sida waxyaabaha adiga aad cunto bariis baasto iyo qudradaha kala duwanba balse 1966 ayuu si toos u soo bandhigay inuu cuni karo waxyaabaha adag markaas ayaana la bartay ninkan sida dhaqaatiirtu ay sheegeen wuxuu leeyahay dheefshiid aanan dhibayn waxyaabahan adag dheefshiidkiisana wuxuu u dulqaadan karaa waxyaabaha aanan caadiga ahayn taasoo u fududeysay inuu laqo wax kasta si tartiib ah noo cuno waxyaabahan aan ku sheegi doono diyaaradan ku muuqata ee Cessna 150 lagu magacaabo ayuu cunay dhammaanteed cunisteedana waxay ku qaadatay 2 sano intii u dhaxaysay 1978 ilaa 1980 2 sano ayuuna laayay diyaaradan oo dhan iyadoo maalin walba qayb uu ka cunayay waxyaabaha kale uu ninkan cunay waxaa ka mid ah 18 baaskiil 7 telefishin 2 sariir 1 computer 1 naxash iyo kuwa kale oo badan haddaba waxa uu fududeeyay Master Tito wax walba cune inuu laqo birahan iyo waxyaabahan kaleba waa in uu kala jijibin jiray wax kasta qaybo yar ka hor inta uunan isku dayin inuu cuno dabadeed wuxuu cabi jiray saliid biyo ayuuna kasii daba cabi jiray isagoo laqaya birta saliidda iyo biyahana waxay ka caawin jireen ninkan in birta dhuunta hoos ugu dhacdo Titona dhib kuma uusan qabin cunida waxyaabahan oo dhan dhammaan shayada adag ee uu ninkan cunay saameyn kuma aysan yeelan calooshiisa xitaa xanuun kama uusan dareemin maalintii hal qayb ayuu cuni jiray oo biro iyo waxyaabo kale ka samaysan si caadi ah sida cuntada caadiga oo kale aad u cunto anigana aan u cuno sidoo kale jir ahaan kama uusan duwaneen adiga iyo aniga iyo xitaa dadka kale oo caadiga ah oo sidan buu ahaa wax farqi oo weyn ah kama muuqan qudradda aan cunno sida mooska babayga qaraha iyo waxyaabaha jilicsan oo dhanna xanuun ayuu ka qaadi jiray calooshiisana wax jilicsan oo dhan uma aysan adkeysan karin Miguel Tito ninkan caloosha mucjisada ah lahaa wuxuu hadda ku jiraa buugga diiwaanka taariikhaha dunida dadka la yaabka leh iyo dadka saameynta leh wuxuuna buugaas ku galay qofka ugu cunista la yaabka leh dunida maadaama biro dhalooyin diyaarado baaskiilo iyo telefishino uu hal mar laqay diiwaanka ayuuna sidaasi kaga jira buugga diiwaanadana waa laga helayaa haddaba ninkan caloosha mucjisada ah lahaa waqti aanan sidaas u dheereen buu geeriyooday 2007 geeridiisuna waxaa lagu sheegay inay ahayd in uu u geeriyooday sababo dabiici ah wuxuuna dunida faaruqay iyadoo 10 maalmood laga joogay dhalashadiisa 57 sano ayuu jiray markii uu geeriyoonayay isla qabuuro ku yaalay meesha uu ku dhashay ninkan ayaa lagu aasay mucjisada wax cunista master wax walba cune buugga diiwaanada taariikhda ayuuna sidaas kaga jira muuqaalkii aan kaga hadlaynay ninkan lahaa caloosha mucjisada leh Miguel Tito intaan ayaan kusoo koobayaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshay like saar
tani muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.